Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qalab xafiiseed kala wareegtay taliska qaybta saddexaad ee ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qalabkan ayaa noqonaya mid dabooli doona baahiyaha ka jira xafiisyada wasaaradda caafimaadka maamulkaasi. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cismaan ayaa uga mahadceliyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen. farxadeen ay noo tahay in maanta supply lagu wareejiyo wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed aan qadaan nahay. supply koowaad maahan intaasoo supply lagu wareejiyay sidoo HR-ka wasaaradda sheegay gurmadkii degmada Bardaale loo sameeyay iyo gurmadkaas oo supply badan la keenay lagu deeqan containero ilaa 5 xabo oo qalabkan gashinayni TB-da la dhisay daaweyn badan la siiyay iyo hadda MCH-ka noo balan qaadeen dhammaan ay ku maasan yihiin mas'alaantaas kadib waxaan rabnaa wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed ay garab taagan yihiin in sector 3 walaaleen Itoobiya sidoo taliye ku-xigeenka u sheegay walaalaha Itoobiya sector 3 iyo dowladda Koonfur Galbeed daris waayo walaaltinimo maxaa dheer darisnimo waxaan rabnaa codsi oo wasaaradda caafimaadka badan ay soo gudbeen ka jawaabeen codsi badan oo soo gudbinayna wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed oo maad celinaysa in walaalaha sector 3 codsiyada ka soo jawaabeen iyo codsiyada hadda ku maqan oo rabaan inay ka soo jawaabaan waxaan jeclaan lahaa in tookadan supply badan lagu wareejinayo degmada Baydhabo anigoo arkeen hadda supply la geeyay degmada Waajid oo ama degmada Bardaale oo lagu wareejinayo wasaaradda aan ugu qayb galno baahiyaha degmooyin kale soo gudbi doona insha Allah waxaan rajaynaynaa inay baahiyahaas wax ay ka qabtaan walaalaha AMISOM garab taagna aad u mahadsanyihiin. Xamdi Dhool, Hirshabelle TV, Jowhar.